maanta bishu tahay 21 oo ah bishii muxuu ahayd April 2025 anagoo joogna magaalada madaxda Puntland ee Garowe maanta waxaan rabnaa halkan inaan ka daahfurno shir muddo dheer la sugayay kaasoo dhaxalgal ah taariikh ah oo ku saabsan caafimaadka guud gaar ahaan wixii maalgashi ah ama maalgelin sidii loo dhigaba iyadoo ay tahay dalku in aayihiisa laga fakiro inay tahay ballanqaadyada la qaadayo oo ah dadka maxaa loo qabanaya dalkana xaguu u socda wada socodkaas markaa tusaale laga bixinaya taalo badan laga bixinaya iyadoo ay tahay in la helo dadku waxay u baahan yihiin inay ummaddu ay gaarsiiso dawladduna ay tahay adeegihii shacabka marka kan wuxuu ku soo beegmay xaaladaha dunida oo isbeddello badan u socdaan waxyaalo badan oo markii horeeto iska fududaa inay hadda adkaadeen taasoo ah mucaawanooyinkii la bixin jiray in boqolkiiba 65 ay go'day bixintii la bixin jiray meelaha qaarkoodna wadamadu ay diideen ay ku tala galeen dalalkooda dariskooda ma ahaane wax kale inaanay waxba siin marka waxay la galay xilli isku tashi dhinaciisa loo badan doono marka taasaan rabnaa inaan anaguna kolleyba la jaanqaadno oo ah dee mucaawano kolley iyaduna waa halkeeda laakiin inaguna maxaynu isku tashan karnaa iyo caafimaadkan aadka u dhibta badan oo qofka Soomaaligu gaar ahaan reer Puntland sanadkii intaasoo qof dibadda inooga aado oo caafimaad ahaan dib ay ku tahay iyo dadka aan waxba haysan seebaan ugu diyaar garoonaa caafimaadkooda berri saan wax ugu qaban lahayn haddii waxaa la waayo waxaan hadda la dhisay oo xarumaha caafimaadka ilaa 419 ka shaqaysiintooda in la isku tashado oo dawlad hoose ahaan dawlad dhexe iyo shacab dadka la baro loo sheego marka wax waa socdaan hadda wax walba waa jiraan laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay waxa weeyaan waxa lahaansho aad leedahay inaad ka faa'iidaysatid inaad ku shaqaysid oo adigu aadan qof kale uga daba istaagin marka arrintan hadda aan maanta halkan laga furayo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadkii wax ku soo kordhiyay caafimaadka adduunka gaar ahaan Professor Khalif Bile oo marwo caafimaad saa la socotaan barnaamijka asal ahaan isagu oo iska leh ayaa maxay ahayd martino ah qaybtaasna runtii qayb aad lixaad ah markii horena Pakistan uu ka bilaabay Soomaaliyana markii dambe Bayl Project loo keenay ee hirgashay baaramna iyo hay'adaha hadda inala jooga hadday timaado arrinta taagan iyaguna kaalintooda maxay ka qaadan karaan marka waa shir loo wada dhan yahay daafurkiisana maanta madaxweyne ku-xigeenka uu inoo furi doono haddii alla yiraaho muxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Ilyas Logotor marka intaasaan hordhac inii siinayaa wixii dambena waa isla wada joognaa haddii alla yiraaho. Wassalaamu calaykum.